kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh ee Hurfadhi Media kolba nagala socda akhyaarta markaasi wararkeena iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda mar walba ku xiran kuna tiirsan annagoo kolba deekeena wararkii ugu dambeeyay dunida iyo warbixinihii ugu dambeeyay caalamiga ah xiisadaha caalamka iyo siyaasadaha markaasi kow ee dunida ka jiray hadba sida ay xaaladdu isku bedelayaan bad uga barateen Hurfadhi Media daawadayaasha qiimaha leh wararka ugu waaweyn caawadii haynana waxa kamid ah dalka Sacuudi Carabiya wuxuu ka digay inuu talaba military ama weerar culus oo dhinaca militariga ku qaadi karo dalka Qatar iyo sababta soo dejinaysa weerarkaasi ayadoo markaas la ogaaday warqad uu qoray boqorka dalkaasi boqor Salmaan tafasiil ayaan arrintaas idin ka haynaa dalkaasi Yemenna kooxda Xuutiyiinta ee ku sugan waxay ku dhawaaqeen in magaalooyinka Abu Dhabi iyo Dubai ay hadda wixii ka dambeeyay noqon doonaan goobo dagaal Trump oo warqad ka socota hogaamiyaha waqooyiga Korea Kim Jong Un gacanta loo soo gashay qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka dhinaca diblomaasiyadda iyo warbixinaha ugu dambeeyay caalamiga daawadayaal halka nagala socotaan ama naga daawanaysan Hurfadhi Media dabcan taariikhdu waa labadii bishii June ama bishii lixaad labadeedii 2018 waa sabti waa kol kale barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabay markaan ugu horeysay xukuumadda ama dawladda dalkaasi Venezuela ayaa shaaca ka qaaday inay ooda ka qaadayso maxaabiis siyaasadeed iyo dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo gaaraya 40 xubnood oo indhaweeta xidhnayd ase yeeshee madaxweyne Nicolas Maduro ayaa hadalkaas ka soo yeedhay cambaareyn weyn kala kulmay maadaama dadka la soo deenayo uusan ku jirin siyaasiga caanka ah ee la yiraahdo Leopoldo Liposi oo horey u soo ahaa duqa degmada Chaco oo ka tirsan magaalada Caracas waxay dawladdu xidhay 4 sano ka hor iyadoo lagu eedeeyay inuu soo qaban qaabiyay mudaharaadyo dawladda looga soo horjeeday oo diig badan ku daatay iyo inuu cilaaqaad wanaagsan la leeyahay dalal la aaminsan yahay baa leeyahay inay jiritaanka midnimada iyo wadajirka amni qaran iyo madaxbanaaneed ee dalka Venezuela ay lid ku yihiin dadka la soo daynayo intooda badan waxa ay ku xiran yihiin xarunta dhexe ee mukhaabaraadka booliiska dalka Venezuela ku yaala gaar ahaan magaalada xarunta oo dalkaasi Caracas sidoo kale dadka xabsiga laga soo daynayo waxa kamid ah duqii hore ee magaalada San Cristóbal Daniel Caplos afayeenka dawladda Venezuela ayaa wuxuu sheegay in talaabadaasi inay tahay mid loogu gogol xaarayo wadahadal la yeesho mucaaradka qaadacay doorashadii madaxweynaha dalkaasi Venezuela bishii hore dhamaadkeedii ka dhacday halka nagala socotaana waa wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinii dhinaca diblomaasiyadda ee dawladda Lebanon waxay sheegtay in ay ku guuleysatay soo qabasho 2 nin oo bangi ku yaala magaalada xarunta u ah dalkaasi Beirut ka dhacay lacag gaaraysa $1 milyan laba nin ayaa u baxsaday dalkaasi Turkiga kadib markii ay dhaceen baa leeyahay bangi ku yaala Lebanon lacag gaaraysa $1 milyan waxaana warqoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi Saad al-Hariri lagu sheegay in ra'iisul wasaare Saad al-Hariri uu xiriir la sameeyay dhigiisa dalkaasi Turkiga Binali Yildirim isla markaana uu ka warbixiyay 2 nin oo lacagta sitay oo lacagta soo xaday ama soo dhacay oo la kiraahdo Maxamed Khalsido iyo Maxamed Ali Yaasini labada nin ayaa la sheegay in ay goosteen tigidh ku socday magaalada Istanbul ee xarunta dalkaasi ee xarunta dhinaca ganacsiga dalkaasi Turkiga booliiska gaarka ah ee dalkaasi Turkiga ayaa loo xilsaaray arrinta inay dhaqdhaqaaqa nimankaas la socdaan waxaana la sheegay in lagu weeraray deegaan ay kaga sugnaayeen magaalada la yiraahdo Istanbul kadibna ciidanka gaarka ah ee gaar ahaan qaybta hay'adda leedahay National Intelligence Organization MIT la yiraahdo saraakiil sarsare oo carbisan ka hortagga dambiyada noocaas oo kale ay isku hareereeyeen hooyigii ay ku jireen waxaana la sheegay in nimankaas oo jeebaysan isla markaana lacagtii $1 milyan ahayd ka sita ama ay ka nooshahay $600,000 loo diray ama dib loogu tarxiilay dalka Lebanon dawladda Lebanon ayaa ka mahad celisay talaabada ciidanka booliiska dalkaasi howlkarnimada ah iyo dhinaca markaasi mukhaabaraadka ay la wadaageen hay'adda kale ee dalkaasi Lebanon oo iyadu soo wargelisay dawladda dalkaasi Turkiga si ay u soo qabqabato xubnahaas shirka ka soconaya dalkaasi Singapore ee isugu imaanayaan dalalka Asia iyo kuwa saaxiibada gaar ahaan dalalka markaasi shirka markaasi ay isugu yimaadaan wasiirada difaaca ee dalalka ku yaala badda Pacific ayaa waxa khudbad markii ugu horeysay loogu tilmaamay inay tahay mid aan Tanzania ka jeediyay halkaasi madaxa wasaaradda difaaca ee dalkaasi Mareykanka Major General James Mattis ayaa khudbadiisa u isticmaalay inuu kaga faa'iideysto xiisadda ka taagan badda koonfurta Shiinaha oo ciidamada qalabka sida ee badda iyo ciidanka cirka dalkaasi Shiinaha ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo
Chimatis ayaa ugu yeeray in ay tahay waxa Shiinuhu ka wada halkaasi jujuub military iyo fan buu yiri isla markaana uu Mareykanku goor walba ay noqoto uu ka qaadi karo talaabo ka duwan tan markaasi ayagu wadaan ka dhanahtan ay wadaan wuxuu yiri doonaha aanu ka leenahay gobolka iyo badweynta koonfurta Shiinaha marnaba kama bixi karo Mareykanku danahaas isla markaana faraha kama qaadi karo wuxuu yiri khalad kasta oo la sameeyo waxay noqon kartaa buu yiri mid faraha looga gubto wuxuu yiri hadii aadan khalad sameyn Mareykanku wuxuu yiri qadiyada uu ka leeyahay iyo wadanaha uu ka leeyahay Pacifica waxay noqon doonaan kuwo mar walba barta sare kaga jira buu yiri wuxuu ugu yeeray rabitaanka qaranka iyo ilaalinta buu yiri amniga guud ee Mareykanka iyo danaha uu ka leeyahay halkaas wuxuu yiri waxaan la soconaa isla markaana ognahay in dawladda Shiinuhu ay wajahayso isla markaana ay doonayso buu yiri in ay si xoogan uga faa'iideysato dhaqaalaha iyo wuxuu yiri macdanta ka buuxda baddaasi hase yeeshee taa kaligeed ayadu ma qaadan karto isla markaana Mareykanku uu la shaqeeylaha hadii ay si cadaalad ah arintaas rabaan inay u galaan wuxuu sheegay in sida muuqata Shiinuhu uu door bidayo inuu awood dheeraad isticmaalo Mareykanku sidoo kale wuxuu sheegay in halkaas Shiinuhu uu soo dhoobay gantaalaha burburiya maraakiibta badda hoostooda mara iyadoo markab kamida maraakiibta waaweyn ee dalkaas Mareykanka uu taagan yahay badda magaalada la yiraahdo Danang ee dalkaasi Vietnam oo gaar ahaan markabka xambaaraha weyn ee USS Ronald Reagan kaasoo kulaalaya badweynta Shiinaha koonfurta Shiinaha shirka la yiraahdo Shangri-La Dialogue ayaa waxa isugu soo ururay wadamo badan iyadoo wadamada xiisadu kala dhaxayso Shiinaha ee halkaas ku sugan ay kamid yihiin Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Philippines iyo Brunei dhamaantoodna waxay ka fakarayeen samarkaana ay ka baaraan degayaan sidii ay Shiinaha uga hortagi lahaayeen badda ay haatan dalalkaas ay isku haystaan ayaa dalka Shiinuhu wuxuu leeyahay dhamaan dalalka kale wax xaq kuma laha baddaas isla markaana inta badan goobo uu ka sameeyay badda dhexdeeda oo ah jasiirado markaas gacan ku rimisa ama gacan ku samaysa iyo waliba jasiirado uu si xoog u qabsaday ayaa u badan dhulweynaha dalkaasi ama dhulweynaha qaramada midoobay oo aqoonsan tahay dalka Philippines hase yeeshee dawladda Philippines ayaa ka gamagaabsatay isla markaana dib uga gambatay in ay wax dagaal ku dhawaaqi karto saacadan waxaana Shiinaha doonayaan inay arintaasi si nabadgelyo deegaanka uga baxaan iyadoo madaxweynaha dalkaas Philippines dictator uu haatan leeyahay arintaas waxay noqon kartaa uu yiri qariska tuurnimo maadaama Shiinaha aanan iska celi karin badweyntaas ayaa waxay caan ku tahay isla markaana waxa lagu xamanayaa inay ka buuxaan ama uu ceegaago shidaal aad u badan iyadoo kalluunka ugu badan ee ku jira badweynta qaaradda Asia halkaas lagu tuhunsan yahay isla markaana kalluumada adduunka ugu qaalisan laga helo ee dhinaca markaas soorta loo isticmaalo waxaana haatan muuqata in si weyn ay arintaas xaaladeedu ay u adkaag tahay deegaanka asaguna ka jeedinayay shirka asaguna ka dhinac furmay shirkaasi leedada Indo-Pacific ee uu ka hadlayay isla wasiirkaas difaaca dalkaas Mareykanka ayaa ra'iisul wasaaraha dalkaas India Narendra Modi wuxuu si weyn u dhaleeceeyay dalalka Mareykanka iyo Shiinaha wuxuuna ugu yeeray labada dal in ay isku yaqaanaan wuxuu ugu yeeray badbaadiyaasha caalamka asagoo sheegay in dalka Mareykanku dhaqanka ah in uu isku cimaamado buuri inuu noqdo dal asagoo badbaadiyaha dunida ay tahay mid khalada sidoo kalena wuxuu fariin u diray dalka Shiinaha ayuu ganacsatadooda ku tilmaamay inay yihiin kuwo iyagu dantood qoofayaal oo inta badan aan eegin buuri danaha isku midka ah wuxuu yiri hadaynu nahay qaaradda Asia waa inaynu danaha ay dalalku kale leeyihiin noqdaan buuri kuwo ku salaysan buuri istixgelin danaha qaranka iyo dal walba inuu dantiisa ka dhaxarko ganacsi xor ah wanaagsan isla markaana fursad loo siman yahay wuxuuna yiri dhamaan dalalku way u sinaadaan fursadaha noocaas oo kala ah hase yeeshee wuxuu sheegay in shirka kale ee dhinaca wasiirada difaaca iyaguna ay kale yihiin isla magaaladaasi Singapore ee la yiraahdo ee lagu magacaabo la yiraahdo Shangri-La Dialogue uu yahay buuri mid looga faa'iideysan karo in dhinaca militariga iyo amnigana wax la iska dhaxo halka dagala socota wararkii ugu dambeeyay dunida warbixin dhinaca diblomaasiyadda haatan Saudi Arabia dawladda dalkaasi Saudi Arabia ayaa warqad ay u dirtay dalkaasi Faransiiska isla markaana u muuqata inay tahay digniin iyo ogeysiis iyo ergo ayaa waxa helay wargeyska afka dheer ee ka soo baxay dalkaasi Faransiiska ee Le Monde
لمندي ayaa wuxuu sheegay in warqadan oo uu soo istaamgareeyay ama uu soo saxeexay boqorka dalkaasi Sacuudi Carabiya boqor Salman bin Abdul Aziz Al Saud uu ku hanjabay in dalka Qatar ay ka qaadanayaan talaabo military oo afka ciida loogu daro dawladda yar ee Qatar hadii baaliri ay iibsato gantaalaha S400 ka la yiraahdo ee ah gantaalaha dhinaca difaaca ee dalkaasi Ruushku soo saaray لمندي wuxuu sheegay in warqadan ay arkeen jimcihii uu soo diray boqor Salman bin Abdul Aziz Al Saud ay ku socotay si toos ah buuri madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron ayaa boqor Salman wuxuu ciwaan uga dhigay walaaca iyo nasiib darrada dhici karta waxaana uu sheegay boqor Salman warqada tafaasiisha uu ka bixiyay ay ahayd baa leeyahay waxaanu la soconaa wada hadallada u dhaxeeya Moscow iyo Doha ee ku saabsan inay iibsanayaan gantaalaha horumarsan ee ka hortaga baa leeyahay diyaaradaha ama lidka diyaaradaha ah ee ah sidoo kale ah difaacayaasha gantaalaha ay ka soo iibsanayso ama ka soo waaridayso Doha magaalada Moscow isla markaana ay dhamaadeen heshiisyadii si qarsoodi ah sida daraadeed boqortooyadu waxa ay Faransiiska weydiisanaysaa inuu kor u qaado galaangalka iyo inuu u sheego dawladda dalkaasi Qatar inay ka noqoto arinta hadii taas ay dhici weydo dawladda dalkaasi boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay ka walaacsantahay kan walwalaysa arxan darrada iyo nasiib darrada ka dhici doonta arintaas oo Doha ay kaligeed ku dhaqaaqdo waxayna taas si cadaandaansi iyo faragelin ugu tahay baa leeyahay amniga qaranka ee dalka Sacuudi Carabiya waxaanu qaadi karnaa baa leeyahay talaabo kasta oo suuragal ah iyo inaanu qaadno wax kasta oo xaaladda iyo danaha Sacuudi Carabiya ama boqortooyada lagu badbaadinayo oo ay ku jirto baa leeyahay talaabo military iyo mid difaac oo la sheegay inay noqon karto talaabo military oo waqti kasta si ciyow ah u dhacda ayaa la yiri warqada oo ay sheegtay Limondi inay ka heshay xubno ku dhow aqalka looga taliyo dalkaasi Faransiiska ee LC wuxuu sheegay in saraakiisha LC ay cadeeyeen in warqadu ahayd mid markaasi erayada ku qoran ay dhiila xambaarsanaayeen isla markaana si xoogan ay u muujinaysay dhibaato xoogan joontan aynu ku jirno 3 casho baa ka harsan baan maranayaa maalintii aan wararkana bilownay sidoo kalena qadiyadaas ay dhacday 5teedii 2017 ayaa Sacuudi Carabiya iyo dalal kamid ah oo ku jira ururka Gulf Cooperation Council GCC oo ay kamid tahay Bahrain iyo isku tagay Imaaraadka Carabta iyo waliba Masar oo iyadoo aan ku jirin ururka balse jaamacadda Carabta oo ah lafdhabar ama dalka lafdhabarka ugu jira ayaa waxay hal mar gooyeen xiriirkii dhinaca diblomaasiyadda ee dalkaasi la lahaayeen xaaladan culus ayaa haatan waxay u egtahay mid soo dadajinaysa in labada dal ay afka istari karaan dalka Qatar idhawaale wuxuu ku jiray diyaar garow xoogan oo dhinaca markaasi isdifaacidda asagoo urursaday ciidamo tababar xoogan u farayay ciidamooyin kala duwan hub culusna dunida ka soo iibsanaya iyadoo Mareykanku uu kamid yahay dalalka sida xoogan khilaafkii uga faa'iideystay isla markaana ka dhigay suuqa iibgeynta ganacsigiisa hubka oo si weyn u iibsaday xeeldheerayaasha dhinaca militariga dalkaasi Ruushka mid kamid ah oo la hadlay TV-ga Al Jazeera ayaa sheegay in arintanu ay muujinayso sida Sacuudi Carabiya aysan u jeclaysanaynin saameynta iyo galaangalka Ruushku ku leeyahay bariga dhexe waxaana ay sheegeen in Ruushku uu dhowr jeer ku hungoobay heshiisyo uu la galay dalkaasi Sacuudi Carabiya waxaana la sheegay in dhawaan markii boqorka Sacuudiga uu tagay ama sanadkii hore uu tagay dalkaasi Russia ay ku guuldareysteen in ay ka iibsadaan wax ayaala fara badan oo Ruushku u soo bandhigay inay Sacuudigu la wareegaan sida daraadeedna Sacuudigu haatan Ruushku haatan uu door bidayo inuu Qatar heshiis la galo halka nagala socotaan waa Horfadhi Media wararka ugu dambeeyay dunida warbixinay dhinaca diblomaasiyadda wada qiimaha leh farqama qodna wararkeena haatan qaybta labaad ee wararka ay ku soo dhawaad doontaan daqiiqadaha soo socda